agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyay ee xanuunka coronavirus ee magaalada Burco. Agaasima Suudi ayaa sheegay in 24 saac u dambeeyay xanuunka ay ku geeriyoodeen magaalada Burco 3 qof halka fiditaankiisuna uu sii kordhayo. Agaasimaha ayaa sidoo kale ka hadlay 2 mishiin oo oksijiinta dhaliya oo yaalay cisbitaalka guud ee Burco oo kaasi oo mid ka mid ah la geeyay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. Wuxuuna sheegay agaasimuhu in mishiinkaasi xaalad daruuri keentay in loo qaado gobolka Sanaag. xarumahan hawlahan emergency-ga ee ku jirna baahida caafimaadku oo runtii ah hawl dhammaan dadka oo dhan u taala inaan ka qayb qaadano wacyigelinta ama fariimaha aan gaarsiinayno bulshadeena aan wali ku baraarugsanayn khatarta uu leeyahay xanuunkan COVID-19 oo adduunka oo dhan ku fiifaafaya. runtii haddaan warbixinada ka siiyo xaaladihii u dambeeyay xanuunkan muddadii bishan March aynu ku jirnay wali xanuunkani wuxuu samaynayaa korukac oo dadka uu soo ridanayo iyo dadka dhimashada ku keenayaaba wali wax bisbedel kuma hayno. runtii waxaan halkan fariin uga dirayaa shacabweynaha Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer iyo magaalada Burco in xanuunka wali jiro oo loo baahan yahay in qof kaste uu ka qayb qaato sidii aynu u badbaadin lahayn bulshadeena. mas'uuliyadda waa inaan ka bilownaa shakhsi aynu ku dhamaynaa qaranka oo qof walba inta bulshada ka wacyigelin kartid iyo inta ka fogaan kartid aad ka fogaatid. waxaan ognahay xanuunkan inuu ku faafo bulshada dhexdeeda oo qofku qof u gudbinayo oo walaxdii qofka xanuunsanaya taabta hadii qof kale ka daba taabta uu gudbinayo. marka bulshada waxaan uga gudbinaynaa qof waliba inuu maas xidho oo afku daboosho markuu suuqa marayo iyo meelaha bulshada iskugu imanaysa inuu afku daboosho. qof walbana markuu gurigiisa ka soo baxayo iyo markuu ku noqonayo iyo marka meelaha bulshada iskugu yimaadaan baa inuu faraxasho. waa in bulshadu ay ka qayb gashaa oo kaliya kulanada aadka u muhiimka ah ee laga maarmaarka oo kaliya dadka laga helayo iyo dadka la baarayo marka la eego waxay marayaan in 25% ilaa 30 inta u dhaxaysa ay yihiin dadka marka la baaro laga helayo. runtii shalay u dambeysay qaybtan aynu ku daweyno dadka xanuunka qaba waxa ugu geeriyooday 3 qof. Allah u naxariisto baan leenahay dhammaan ehladooda iyo qaraabadooda iyo qaranka Soomaaliland samriyeeman Allah ka siiyo. mishiin oksijiin oo shalay loo qaaday magaalada Ceerigaabo markii xaaladan gargaar degdeg ah emergency-ga ee xanuunkan u dhacday waxa jiray in cisbitaalka magaalada Burco ay soo gurmadeen shacab iyo dadweynaha reer Togdheer iyo dawladda iyo ganacsatada reer Togdheer. runtii waxaan soo gaaray 2 mishiin baan soo gaaray oksijiinta dhaliya. 2 mishiin waxay u shaqeynayeen cisbitaalka. waxa kale oo aan u shaqeynaynay gobolada bariga oo culays badan ay nagu haysay oksijiintooda la dhaaminayo. wasaaradda horumarinta caafimaadka oo hogaaminaya wasiirku waxa la isla gartay in 2 mishiin mid ka mid ah maadaama ay baahi aad u badan ka jirto gobolka Sanaag in 2 mishiin mid loo geeyo oksijiinta dhalinayay. iyadoo anagu 3 bilood oo dambeysay aan ku shaqeynaynay mishiinkii uu keenay Allah khayr ha siiyo ganacsadaha Dahabshiil kaasoo runtii aan qabo inuu nagu filan yahay magaalada Burco iyo cisbitaalka uu ku filan yahay iyo xaaladan ay ku jiraan ku filan yahay. runtii gobolka Sanaag ama magaalada Ceerigaabo dadka ku nool waa dal reer Soomaaliland xaaladooda adag baan ku sugan yihiin. oksijiin Burco laga dhaaminayo ma aha mid ku filan oo ogtiin Ceerigaabo distance-ka inoo jirto. marka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka Togdheer waxa la isla gartay in mishiinka Ceerigaabo la geeyo oo bulshada tabaalaysan ee magaalada iyo gobolka ku nool maaha magaalada Ceerigaabo kaliya gaar ahaan gobolka Sanaag oo dhan xanuunku ka jira siigana lagu tacaalo ayaa hadii la yiraahdo wasaaradda caafimaadku u garatay in loo geeyo magaalada Ceerigaabo. innaguna waan haysanaa mishiin. waxa kale oo jirtay in dadku bulshada baraha bulshada dad badan ku faafinayeen mishiinadii oo dhan baa la qaatay qaarna ay lahayn mishiinkii wanaagsanaa la inaga qaatay
bay kii wanaagsanaa laynagama qaadan baan leeyahay labada mishiinba way wanaagsanaayeen laakiin kii annagu aan dan u bidnaan isleenahay cisbitaalka iyo magaaladanba waa u dan ayaa maanta inoo shaqaynaya oo saacadda ay la hadlaysaan shaqaynaya waa Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco.